وهسي Soomaalida oo sida arkaysaan ay miisigii fanaanka Soomaaliga dalmariire u tumayaan koox Maraykani inta daawanaysaana waxay u badan yihiin ama gabi ahaantooduba ay yihiin dadka gobolkan ku nool oo nooc walba isugu jira dalmar aad iyo aad baan walaal ugu faraxsanahay horta inaynu kulanno waad mahadsantahay inaad halkan nagu soo marti qaaday bandhigan waa markii ugu horreysay salay sheegay ee Soomaalidu ay ka soo qayb galaan miyaa waa markii ugu horreysay waana markii ugu horreysay cabsanaha hareeriyo weligay aan TV-ga aan kala socon jiray one of the dream guy in la kulmo maanta la joogaad baad mahadsantahay qudhaydu aad baan ugu faraxsanahay inaynu kulanno maxaad maanta markaa ugu soo tala gashay bandhigan wallaahi dadkan waa dad cadaana aniga goolkaygu waxa weeyaan Soomaalida waxa laga fahansan yahay inaan bedelno oo aan bulshada dhaqankanaga inaan barno waa markii ugu horreysay oo state fairkan qof Soomaali uu yimaado oo ka perform gareeyo aad baan ugu faraxsanahay kullayda enjoy the show insha Allah daawada waad mahadsantahay su'aalaha badankooda marka dambe inuu dhiganaynaa laakiin waxa dad fara badan oo maqal ay ku hayd maanta ay arkayaan kooxdan Mareykanka ee miisiga ku tumaysa muddo intee lagba practice wada sameynaysan ama tababar soo wada qaadateen والله هرت music international language ولغة عالمية شنفروننا الاسم فهم wax badan ay qaadataa way adag tahay laakiin waa markii ugu horreysay chance kan aan helno waxay nagu qaadatay muddo wada shaqeynay ilaa 5 sano la shaqeynay qolada cadaanka laakiin kooxdan ana iskale oo koox aniga sameystay aan isku tababaray album baan hadda sameynay ilaa 8 heesooda oo goordhow aan ka wada sheekaysan doono insha Allah adiga practice waxay nagu qaadatay ilaa 3 bilood 4 bilood bandhigii hore waad u samaysay dad aan Soomaali ahayn oo Mareykanka sidee u qaataan Soomaalida miisigooda wallahi waxaan isku daynay in western culture-kii iyo east african culture-kii la isku dhaxdaro waxaan u maleynayaa ilaa 7 kooxood baa stage-kan fuushanayd ilaa iyo bishii la soo dhaafay 15keedii 7 kooxood kale kooxda kaliya dadku interest gareynayaan waa anaga weeyaan because wax unique oo hore loo arag baan aan wadanaa maxaan doonoon dibjiray waxaan darajee isiriye inaan isdaryeelayo maxaan damiir garashar la rabay dalmar xagga dambaanu ka soo wareegno waxaanu sii waxoogaa ka sii gaarsiiyey Hello. Hi, my name is Abdislam. Hi, Holly. Very nice to meet you. Nice to meet you. Af Somaliga ma ku hadashaa? I sing. I'm singing. Okay. You're singing in Somali. Yeah, I can sing now. But oi han allamane lubiya lapta ego gaboholunka iga dawe solo. Oh, that's it. Later. We'll leave the rest for later. Inta kala hadhow baynu u dhiganaynaa way time iska sii dhamayn mayno laakiin but do you speak Somali? No, only what I sing in the songs, but I've been translating the lyrics from Somali into English and then English into Somali so that we understand what we're saying to one another. Waxay sheegtay in ay af Soomaaliga ku haysto laakiin aanay ku hadlin laakiin haddana dadka loo turjumo heesaha Soomaaliga macnaha ay xambaarsan yihiin si dadka faraha badan la daawanaya ay iyaguna u fahmaan dalmar gabadha intee wada heesiiseen hadda 2 sano ku dhawaad wada heesanay she's a great person waxaan hadda isku aadan oo dhan qofka oo madaxda ka ah isku aadiyay number 1 waa iyada aniga iyada waxaan dhan isku keenay aan aad baan u faraxsanahay maanta inaan nala joogto waliba waxaan kugu talagalay aniga maanta hees ay ugu dambeysay 19 sano ka hor inaan qaado waana heestii ugu horreysay qaado waxa la yiraahdaa assalaamu calaykum marka barnaamijkan ku furi doonaa heestaas waan kugu soo dhaweynaynaa adiga
السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم salaan saabkiyo laabtiyo siideenkii wadnahaygiyo sanbabkii aan ka gooyno kalgaacay la dul saaran suuriya idinku sidnaaye dadweyno saani inooga guddooma dadweyno maalmahaadna sugayseen si kale uma habsaamine sugantaad filanayseen saxarkii laga mayran cabdisalaano wadnaaye dadweyno saani inooga guddooma dadweyno sida arkaysaan aad iyo aad baa loola dhacay heesaha ilaa imanka dalmar iyo kooxdiisu ay soo bandhigeen barnaamijku halkiibu ka socdaa minnesota maanta ninkii tamar lahaa waa taxay mirqaankiisa dadku aad iyo aad ayay uga heleen bandhigan dalmar iyo kooxdiisu ay samaynayaan waxaanay muujinaysaa oo ay astaan u tahay marka dhaqamadu ay si habboon u wada shaqeeyaan quruxda ka soo baxda waa arkaysaan muusigii iyo heesihii soomaalida oo laakiin nooc kale ah oo daad garanayso in fara maraykan ku yara jiraan sida loo tumayo waa si la yaab leh aad iyo aad baan ugu faraxsannay annaguna maanta inaannu qayb ka nahay galabkugu siiyo argaysa qismaya iyo wajar ku geeyo gacalkii ummadeedna saalan kugu geeyo gaalan culan caanan ay galabkugu siiyey قاعدي هوني أقول لك روح قاعدي هوني أقول لك روح gacmahaaga iyo gaadha socodkaaga agaaraada xaluquntaada waan ka gabsan waaye gacmahaaga iyo gaadha socodkaaga agaaraada xaluquntaada waan ka gabsan waaye قاعدي هوني أقول لك روح قاعدي هوني أقول لك روح gacmahaaga iyo gaadha socodkaaga agaaraada xaluquntaada waan ka gabsan waaye gacmahaaga iyo gaadha socodkaaga agaaraada xaluquntaada waan ka gabsan waaye